dibadbaxani oo ahaa mid aad u ballaaran isla markaana ay soo qaban qaabiyeen xisbiyada siyaasadda ee ka jira dalkani Koonfur Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin oo kamid yahay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Koonfur Afrika Masar Marius Franisman isla markaana ah wakiilka xisbiga ANC ee gobolka Western Cape. dadka dhigayay dibadbaxani ayaa socod dheer ku soo maray wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxa ayna ugu dambeyn ku soo urureen afafka hore ee aqalka baarlamaanka ee dalka Koonfur Afrika. Masar Franisman oo ku hadlayay magaca xisbiga ANC ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay rabshadaha lagu boobayo goobaha ganacsiga iyo dilka loo geysanayo dadka Afrikaanka ah ee ku nool dalkani Koonfur Afrika. We are also gathering with the Somalian community, a very tried and tested community in Cape Town, a community, the Somalian community that helps to transfer knowledge and skills as well as experience of business with our brothers and sisters in the townships. And we are saying we are coming here together with the church community, with the imams in Cape Town and saying no to xenophobia. waxaan isugu imaan halkan annaka oo la joogno madaxda waddanka ee dalka xakunta oo hogaaminayo Marius Franisman in aan muujinayaan in ay taageero iyo support na siiyaan sidii looga hortagi lahay jinsi naceebka ku wajahan dadka Afrikaanka ah oo walaalaha ah oo soo qaxay oo halkan qayb galay barnaamijkan oo lagu soo horjeedo midabta koorka dadka madow oo Afrikaanka lagu hayo waxaan si wanaag ah qaniyada hadda dhacday inay annaga hore noo soo martay dadkeena Soomaalida ah waxaana ka helnay experience fiican oo maanta waxaan nahay dadka ugu yar ay dhibaatada maanta ka soo gaartay. Viva Africa, Africa, viva! dibadbaxani ayaa noqonaya dibadbixii ugu ballaaran isla markaana ka dhaca magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika iyadoo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Durban, Johannesburg, Port Elizabeth, Pretoria ay ka soconayaan bannaanbaxyo kan lamid ah kuwaasi oo lagu diidan yahay arrimaha isirnacaybka ah ee sanad waliba ka dhaca dalkani Koonfur Afrika. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape